horseed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي عشرين امتحانها هاي إنه قبل حيد كسيده هرسد أي نكون جالسين أرض والبه الكتشوف waxaynu eegaynaa hadii la yiraahdo 10 xisaaba marka fasalka 7 xisaabtiisa way dhamaatay marka muraajacadii baynu soo bilownay muraajacadii marka waxaynu ka bilownay qaybta xaglaha la yiraahdo xaglaha waxa ugu horeysa waxaynu laba qaybood baynu qaybin doonaa waa xaglaha noocan oo ka sameysma laba leen oo bari isugu yimid iyo laba ay xaglo ka sameysma laba leen oo isbarbar orday iyo gudbane kuwa labada leen iyo gudbanaha ka sameysma iyagu inoo dambeeyaan waana kuwa ka yar adag marka loo eego kuwan hadaba halkan 6 baynu ku eegaynaa waa xagal fiiqan baa ugu horeysa xagal fiiqani waa xagal cabirkeedu yahay 90 degree ka yar yahay xagal uu ka yar yahay afwan 90 degree uu ka yar yahay marka xagal kasto 90 degree ka yar waxa la oranayaa xagal fiiqan 60 70 80 waxa soo kala xaglaha soo kala noqonaysa waxa kale oo iyaduna jirta xagal qumane maxay tahay waa xagal cabirkeedu yahay 90 degree uu yahay marka waa xagasha labada leen isku qotoma xagasha ay sameeyaan waa 90 degree weeyaan taasina saas ku dhantahay ta saddexaad xagal fidsan waa maxay xagal fidsan waa xagal cabirkeedu yahay 180 waa xariiq saaw jiifa oo xagasha ka sameysmaysa ilaa halka haday mid la mid halkan ku sii darsanto waxay sameynaysaa 180 iyo 180 kale 360 ma sameynaysaa xagal furan waa maxay waa xagal cabirkeedu ka weyn yahay 190 degree uu ka weyn yahay 180 ka yar yahay 90 degree waa kan halkaas ku joogta 90 degree 90 degree marka intaas ay dhaaftay 180 kana waa kan inta hadii lagu sii dar lahaa 180 may noqon lahayd marka 180 kana way ka soo kacsantahay 90 way ka dheertahay soo waxaan leenahay marka waa xagal furan xagal daacsan waa xagal cabirkeedu ka weyn yahay 180 ka waa kan waa ilaa halka oo halkaas ku jooga xagasha 180 ka oo xagashi fidsanayd weeyaan laakiin intaas ay dheertahay 180 kii marka waxaan oranaynaa waa xagal daacsan weeyaan waana xagal 180 ka weyn kana yar maxaa dhahday 360 ka yar xaglo bar ku kulma maxay yihiin waa xaglo isku darkooda marka la isku daro waxay sameeyaan 360 marka iminka hadaad eegto halka ilaa halka marka laga soo wareego goobadii si toos ah loo soo dhameystiro 360 wixii xaglo inta laga dhex sameeyana waxa marka la isku daro waxay noqon doonaan 360 bay noqon doonaan waxana la oranayaa waa xaglo bar ku kulma taasi waa taa intaas marka waa 6 qaybood ee xaglaha tusaale bal aynu ka sii bilowna hadaba casharka ku xigeen tusaaleyaasha ku sii faahfaahin doona laakiin aynu eegno xaglaha labada tusaale ee fudud aynu ka qaadano marka xagasha maqan ee egasta la inoo diray laakiin sawirka marka saaw aragto waa inaad 6 xaglood ee aynu baranay aad garan kartaa nooca ay tahay imka laba line-kaas ku qotoma soo waxaan leenahay halka ilaa halka waxa ka sameysmaysa xagal 90 degree 90 kiiba 30 lagu siiyay badna laga qariyay aqliga waad ku garanaysaa in 60 ka maqan yahay 90 kii 30 lagu siiyay soo waxaad oranaysaa inta iga maqan oo xal loo qaatay hadii loo geyn lahaa 30 waxay soo bixi lahayd 90 saasay suleekaysanaysa isleektaadu qoranaysa xaada soo saarto xaada iyo tiro la taala hadii isu geeniyo ka jaro dhaxayso waa la wareejiyaa oo iska wareejinayna 30 calaamadiisina way isbedelaysaa soo waxay noqonaysaa 90 kii meesha sii yaalay iyo 30 kii soo wareegay iyo calaamadiisa ka isu geynta haydo ka jar noqotay labada hadaad kala jartona waxay noqonaysaa 60 waana intii naga maqnay saad ku hubinaysaa waxa weeyaan tanaad soo heshay iyo intaad haysatay haday isu geyso waa inay 90 kii aad halkan leekaysiisay ku siisaa way tan kale hadaynu eegno tan kale waxa weeyaan xagal fidsan hadaad sawirka saa u eegto xagal fidsan bay noqonaysaa xagal fidsan waxay ahayd 180 isku darkeedu soo marka hadaad 180 30 ka haysato maxaa ka maqan aad si garanaysaa waxa ka maqan 150 marka xagasha inta ka maqan hadii loo geeyo intan aad haysato waxay kuula mid noqonaysaa 180 soddonka iska wareeji soddonka markaad wareejiso waxay noqonaysaa 180 laga jaray 30 marka waxay ku soo baxaysaa 180 hadaa 30 ka jarto 150 soo hadii la yiraahdo asaas aad uga shaqeynaysaa casharkeenuna hadii la yiraahdo waa ka sida fiican uga shaqeysan waad ku yara cileeshan doontaan tusaalayaashana oo isugu iman doona hadii la yiraahdo kuwa inta ka dambaysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horseed schools